Okay saaxiib soo dhawaada maanta waxaan tusaya qaabka Windows-ka looga bedelo computer-kaas oo Windows 10 ku jiro ayaan 11 u bedelaynaa. Marka ugu horeysa waxaad soo diyaarsanaysaa software-rada sida Windows-ka iyo Rufus on video-ga hore ku sharaxay iyo sidoo kale Flash. Computer-ka aad kugu jiraan software-rada ayaad Flash-ta gashanaysaa, Rufus-ta soo kicinaysaa. Markaad soo kiciso saasaa ku soo baxaysa. Saas marka ku soo baxdo waxaad dooranaysaa goobta Windows-ka kugu jiro. Windows-ka dooranaysaa. Markaad doorato waxaad oranaysaa open markaad tiraahdo. Marka Rufus-ta soo kacaysa start baad oranaysaa si Flash-ta uu ugu boot gareeyo. Marka saaxiibayaal Flash-ta inoo boot gareynaysa hadda uu bilaabay. Sad ku arkaysaan video-ga waan yar jari doonaa kolku dhamaystiro ayaan soo noqonaa. Waa kan saaxiibayaal uu dhamaystiray Flash-ta hadda inoo boot gareysan tahay. Deetana waxaan la tagaynaa computer-kan Windows-ka ka bedelayno oo kan ah. Waan gelinaynaa Flash-tan gelinaynaa. Flash-tu inoo boot gareysan tahay. Computer-ka shidaysaa. Marka shido F9 baad garaacaysaa maadaama computer-ku yahay maadaama yahay HP. Marka saaxiibayaal halkan sad ku arkaysaan eega USB-ga dooranaysaa oo ta u koreysa ah iyo Wi-Fi USB disk baa ku qoran waa Flash-ta magaceeda. Deetana okay baa oranaysaa. Marka saaxiibayaal Windows-ka ayaa hadda soo kacaya. Waa ka soo kacay maadaama video-gan aan idin soo gudbinayo inta in ka badan ayuu idinkeeda ku qaadanaya maadaama waxyaalo badan oo loo baahnaan iyo time fara badan qaadanaya ayaan anigu ka jarjarayaa oo video waa soo edit gareeyay time inta ka badan inuu qaato oo inkasta ku xiran tahay hadana computer-ka version ku yahay iyo ay ku xiran tahay in SSD ku jiro ama HDD uu yahay maadaama HDD uu aad iyo aad busy u yahay oo waqti fara badan qaato. Dabeetana waa kaas saaxiib luqadda waxaad dooranaysaa English baad dooranaysaa next baad taabanaysaa. Marka deetana install now baad oranaysaa si Windows-ka ugu doomo. bartan waa muhiim saaxiibayaal waxaad doonaysaan ilaa Windows 11 Pro ayaa doonaysaan. Inta kale ma doonaysa Pro-gaas ugu wanaagsan kaas dooranaysaa next baad oranaysaa. bartan saaxiibayaal waxaad doonaysaan waa termskii ay accept baad oranaysaa. Deetana next baad oranaysaa. bartan saaxiibayaal aad iyo aad ay muhiim u tahay custom baad dooranaysaa. barta upgrade marnaba ha dooran custom dooro. halkan waa meesha ugu muhiimsan saaxiibayaal waa meesha go'aaminaysa in data-ga computer ku jira ama aad masaxdo ama aad save gareyso. Marka inna waan masaxaynaa shift plus F10 baan taabanaynaa. CMD-ga soo kacaya. CMD-ga markuu soo kaco disk party baan ku qoraynaa sida halka kaaga muuqata. disk party markaan ku qorno enter baan oranaynaa. list disk ayaan qoraynaa. list disk markaan qorno diskiyadii ku jiray baa noo soo baxaya. select disk 0 baan oranaynaa oo ah hard drive-ka computer-ka oo ah ka aan rabno inaan masaxno. Deetana clean ayaan qoraynaa. clean markaan qorro wax alla wixii hard disk ku jiray operating system-kii hore ma taqaana macluumaad ku jiray wax walba uu masaxmaya. halkaan baad refresh taabanaysaa. refresh markaa taabato in CMD-ga la isticmaalo saasay ku fiican tahay. waxyaalaha drive-yadii iyo partition-adii waxyaalihii jiray oo dhan baa hal mar masaxmaya markaad CMD-da ku format gareyso. haddaba ka Windows-gii hadda uu galayaa wuu ku socdaa. durba process-kii labaad buu marinayaa. bartan halkan saaxiibayaal waqti fara badan buu qaadanayaa. clip-ka waan soo jarjarayaa oo mataqaana waan soo edit gareynayaa marka saasaan kusoo gelinayaa. hadda laakiin halkan markaad marinaysid waqti fara badan samir buu kaaga baahan yahay inuu galo Windows. waa ka hadda uu galay. waa ka saaxiibayaal Windows 11 waa ka hadda in maaragtay aan rakibno oo luqadii aan English doorano. keyboardkan aan English doorano sidoo kale isagana. halkan saaxiibayaal hadda khad kuma xirisid no bas oranaysaa with limited baad dooranaysaa. waa muhiim bartaasi. halkan magaca ayaad ku qoraysaa. password-kana waan iska deynayaa next baan taabanayaa. bartan next baan oranayaa iyadana. halkana sidoo kale next baan oranayaa. next accept baan oranayaa.
وكا صاحب يال ويندو وكا سوكاي si fiican baan ugu install gareynay wax walba way saxayeen stepski wax walba soo maray marka saaxiibayaal qaabka weeyaan qaabka Windows loogu shubo aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waan salaamayaa. Assalaamu calaykum.